la oran jiray magaciisa Qays naag buu aad u jeclaa Layla la oran jiray Layla gabadha laakiin boqor baa dhalay isagu laakiin waa miskiin boqorkii baa inantiisii ku yidhi aabbo waad qaan gaadhay haddee toole soo kuma dhiso markaa bay tiri aabbo ninkaad ii dhisaysid anaa kuu sheegay markaas waa ninkee Qays baan jecelahay tiri qayskii askartii ciidankii Qays ma taqaan markaa mid miskiin oo magaalada dawarsada aabba ma adoo ina boqora Qays jeclaan buu ku yidhi magaceenni baad baysay waxay tiri ninkaan inaan ahayn anigu guurkiisa uma fadhiya ninkaa mooyaane maxabada beenbeenta iyo maxabada runtan qisada usoo qaatay dhegaysta waa qiso macquulana marka la eego runtii oo caqligal ah oo wax lagu fahamsiinayay innaka gabadhii way weynaatay ninkiina uu iska waashay gabadhii waa loo diiday moogtahay xayraan buu noqday isaguna timo raanuu la baxayo qasriga boqorku ku wareegaa isagoo markaa magaceega ku celcelinaya xataa maalin baa la arkay isagoo gidaarkii dhudhunkanaya darbigii markaasaa dadkii ku yidhaha war Qaysow darbiga maxaa la dhunkano curi darbigana gidaarkana dhunkanayo sijeedkiisa Layla ku ciyaarayso fadhida buu yidhi waa cajiib soo ma haddana maalin kale la arkay ay isagoo dhudhunkanaya war aygana dhunkanaysana muxuu yahay waaladii ma ay bay kula gashay wuxuu yidhi aqalka Layla ay ku jirto ka soo baxay buu yidhi dhegaysta tu soo socotaa ka cajab badan gabadhii boqorkii si walba markuu dhinac walba kaga keenay wiilashii ay dhaleen madaxdu iska diiday ayaa boqorkii waxaa lagula teliyey marba hadday gabadhani waa tan weynaatee ninkana waalidiisu waali sii dheerba ma ahayn hala dabiibo oo timahana ha laga xiiro aqalka ha la soo geliyo waa nin iska qurux badanee ha la dhiso gabadhana ha loo dhiso dhalinyaradii magaalada markaa waxay ogaadeen inuu boqorku rabo inuu Qays haddee toona gabadha iskaga dhiso boqorkii markaa ciidan buu diro wuxuu yidhi haddaba ninkii Qays ahaa soo qaado aqalka soo geliya geed uu markaa hoos deganaa waxaa loogu yimiday 20 nin oo Qays u wada eg dharkiisii bay wada xidheen waa dhalinyaradii sida dhalinyaradeennu imika kuwa gaalada isku ekeysiyaan madarkin kuwa kubadaha ciyaaro iyo kubaddu maxay tahay waa laastig hawo lagu shubay soo ma kuwa waxaa dheeldheele ee noloshoodiiba waxaa ku dhammaystay ayay dhalinyaradeennu qaarkood ay horumar moodaan isku ekeysiyaan gaal waliba gaalnimadiisu waxa u sii dheer waa shahawaani laastigaa yar ee hawada laga buuxiyey ayuu wax isku mooday oo isku qiimeynaya markaasay dhallinyaradeenina ku daba lumeen waxaad ogaataa dhegayso almar'u maca man axabba yowma alqiyaama buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid nebiga oo yidhi nebi allow nin baa dad jecel laakiin darajadoodii camalkooga ma samayn karo ee nebi allow maxaad odhan lahayd markaa buu nebigu yihi cidda uu qofku jeclaaduu qiyaamaha la joogsanayaa buuhi meel haddaad kuwa heesa aad jeclaato qiyaamaha iyakaad la soo bixi haddaad kuwa kubadda ciyaara aad jeclaato qiyaamaha iyakaad la soo bixi haddaad siyaasi jeclaato qiyaamaha siyaasigaad la soo bixi haddaad qabiili jeclaato qiyaamaha qabiili baad la soo bixi haddaad culammada rabbaaniyiinta jeclaatana iyaka qiyaamahaad la soo bixi haddaad abibakar iyo cumar jeclaato abibakar iyo cumar baad qiyaamaha la soo bixi haddaad nebi maxamed jeclaatana muxamed calayhi salaatu wasalaam baad la soo bixi insha allah dhahada markaa dhallinyaradii maadaama ay maqleen boqorku wuxuu damacsan yahay inuu ninkii Qays ee waalaa uu gabadhiisa iska siiyo isagoo kale markaa iska soo dhigeen halkii la filayay isaga in loogu tagaayo 20 nuuciisiyaa loogu yimiday markaasuu mid walba leeyahay orde Qays waa aniga markaasaa la dawakhay waa isku dhar waa isku timo waa isku hadal waa isku gadh simadaad boqorkii baa loo noqdo la yidhi boqorow meeshii nin keliya ma fadhiyee
labaatan baan helnay, labaatan nin oo wada qays ku yahayna anaku garan mayno. boqorkii baa inantii u yimid, aabbo ninkii labaatan buu noqday. waxay tiri anaa garan, qayskii dhabta ahaa anigaa garanaye, nin walba soo qaadoo qol ku xereeya. qol baa lagu xerayn, qol baa lagu xeraynayaa, qol. dhagaysta waad maqlaysaan insha allah. markaasaa nin walba qolkaa lagu xereeya, waxaa loo geynayaa nin xoog le oo seef wata ayaa loo geynayaa. markaasaa su-aal baa la weydiin oo laleeyahay ma qays baa tahay? markaasuu leeyahy ha qays baan ahay, anaa qaysa, waxa kale waa beenaalayaal. markaasuu leeyahay haddaad qays tahay oo leyla aad jeceshahay, waxay kaa tiri jirhkaaga badh ii soo goo. bal aamusa waad qososheene. kii horreeyaa loo yimid, ma qays baa tahay? ha qays baan ahay. ile laba ninoo xoogla loo keeno seef wadata ma ogtahay oo askara, waana aqalkii boqorka waa la soo xereeyay, lama baxsan karo. ma qays baa tahay? ha. gabadhii waxay ku tiri haddaad qayskii dhabta aad tahay, jirhkaaga badhii soo goo bay ku tidhiye, halkeenu goynaa? noo dhiib han goynay. markaasuu yihi wara qaysna ma ihiye, haddaan idsii daayo albaabkaabuu ka baxay. usalli ya xabiibi. midba mar sidii loogu imanayo mid walba uu lahaa war qaysna ma ihiye, haddaan isii daaya ilaahay da taqaanaan, oo halkaa uga baxayey ayaa isagii dhabta ahaa baa la dul yimid oo la dul taagay. ma qays baa tahay? markaasuu yihi insha allah ha anigaa qays. kuwa kalena wallaahi waxay yihiin garan maayo, meesha un bay igu yimaadeen. oo gabadha waad jeceshahay? ha waan jecelahay. iyadna way jeceshahay. dee waxay kaa tiri jirhkaaga badh ii soo goo, halkeen goynaa? noo sheeg. wuxuu yihi ayada ku noqdo ku dhahada, halkee baad jecesha oo kuu soo gooyaa ka dhahada buu yihi. markaa bay tiri qayskii dhabta waa kaa ii soo saara bay tiri. maxabada kuwa hore maxay hayd? been. maxabada ninkana nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa nabigeennii, waa rasuulkeennii, waan jecel lahay. laakiin dhallinyaradeennu maanta ma john iyo boom bay u eg yihiin mise moxamed bay u eg yihiin? bali sheega ya, ma john iyo bon iyo tyson iyo shaydaan bay u eg yihiin mise moxamed iyo cumar iyo abubakar bay u eg yihiin? هذا هو. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مطيع جعيلك أد شيغنيسو إلهي إلهي وأن جعلهي وأن آمن سنهي ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام وأن جعلهي وأن آمن سنهي. waxay jacayladu ay sax noqonaysaa waa markaa nebi maxamed aad ku dayato. yahuud baa laga diiday maxabo keliya, maxabo qawliya. yahuud baa ilaahay ka diiday, waxay idhahdeen ilaahay annaku waan jecel lahay. markaasaa ilaahay soo dejiyey qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuurun raxiim. yaa muxamed waxaad ku tidhahdaa nimankaa yahuudeed, haddaad tii kuwa ilaahay jecel, waxaad ku tidhahdaa horta aniga isoo raaca ka dhig. ilaahay jacayladiisa waxaa daliil burhaan ka ah itibaaca maxayga? itibaaca nabiga sal alla alay wasalam. fayaa macshara ashabaab, dhallinyaraad u badan tihiin majliskan. inan yar ayaa qaan gaadhay, markaasay aabbaheed ku tidhi aabba kolley waad ii maqan tahay. oo berigaa gabadhu markay qaan gaadho iyadu waxba soo egeegan jirine, aabbaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeed ba usoo hasaawi jiray, oo nin diin loo dabeecad fiican leh usoo egeegayeen. deedna markaabay u keeni jireen. markaa inantu waxay tidhi aabbo kolley waan qaan gaadho, waad ii maqan taho waad ii soo hasaawaysaaye, haddaad nin aad ii keenayso laba miduu ninkaasi ha ahaado, ninaan weligii dhimanayn iyo nin weligii faqiira noqonayn. baar ma jira? bal dee boorama ka soo saara. ma jira weligii ninaan dhimanayn ma haysaan? kuwaan weligii faqiir noqonayna? gabadhaasi cilmi iyo xikmad badana odaygii baa odayaasha u sheegay. wuxuu yidhahdee war annaku garan mayne, bal waxa ujeeda iyada weydii. markaabuu ku soo noqdo wuxuu ku yidhi aabba macaanay ii kaalayna taydiyey, ninaan weligii dhimanayn ma jire iyo nin weligii faqiira noqonayn ma jire,
maxaad u jeedaa bal ii sheeg waxay tiri ninka weligii aanan dhimanaynin waa wiilka 9 wiil oo walaalaha la dhashay hadduu isagu iga dhintana ka kalun bay guursan bay tiri reerka ka bixi maayo yani ma dayacmayo weeyaan ila gabadha mar haddii la guursado 4 ilmood laga dhalo ninku ka dhinto wax sidaa u eegayaba uu yar yahay ma ogtahay dhalinyarada kuwa freshka unbay egeegtaan waa garatay waxay tiri waa ninka 9 wiil oo walaalaha la dhashay hadduu isagu iga dhintana ka kale ku xigoon baa la dumaali bay tiri oo reerka ka bixi maayo ninka weligii faqiira noqonayna bay tiri wa xaamilul qur'aan wa ninka quraanka ilaahay xafidsan xaafidka faqiir ma noqdo bay tiri bal gabadha aqli badideeda ka yaaba ka waran aqli badideeda si sax ay u fikiraysa gabadhaas